marka ay sameeyaan xujay iyo muctamiriin fara badan. waxa qofka muxrimka ahi inta dabadeed uu soo dhaqaaqaya dhinaca Safa isagoo ku sii jeeda dhinaca Marwa oo soconaya oo ku ducaysanaya wixii Ilaahay u haleeshiyo ay ku wajahan naftiisa ehelkiisa iyo muslimiintaba. marka la soo gaaro calaamadaha cagaaranna si xoog leh ay u rucleynayaan ragga, laakiin dumarku kuma jiraan ilaa laga gaaro calaamada kale ee cagaaran. waxa marka xaajigu uu tagayaa Marwana waxa uu ku sameynayaa intii ducooyina ee Safa uu ku soo sameeyay. waxa marka u dhamaaday hal wareeg waxa uu soo daadagayaa oo ka soo baxaya Marwa isagoo ku sii jeeda Safa. marka uu soo gaaro nalka cagaaranna sidii oo kale ay u rucleynaya ilaa nalka kale laga gaaro. sidaas uu ku wadanaya sacyigiisa 7 wareeg oo marka uu yimaado Safa ee uu Marwa ka tago waa hal shawd ama wareeg. marka uu ka soo dhaqaaqo sidoo kale Marwa ee Safa uu yimaadana waa shawd kale. wax dhiba ma lahan haddii qofku inta uu sacyiga socod ku bilaabay dhibaato caafimaad la soo darastay awgeed ama uu socon kari waayay loogu dhammaystiro dawaafkiisa. gaariga lugaha leh, dumarka dhiigga caadada ama nifaaska qaba way u bannaan tahay in ay sacyiga maraan, laakiin dawaafka may, waayo goobta sacyigu ka mid ma ahan masjidka xaramka. khaladaadka ay xujaydu galaan waxa ka mid ah inay dumarka qaarkood rucleeyaan ama socodka boobaan labada nal ee cagaaran inta u dhaxaysa. marka sacyigu u dhamaado ama qofka muxrimka ahi uu hawsha dhamaysto waxa markaasi uu soo banbaxaya inuu tinta iska gaabiyo. waa haddii uu mutamati ahaa, waana inay raggu gaabinta timaha gaarsiiyaan dhammaan madaxa oo dhan. waxaana khalada waxa ay sameeyaan xujayda qaarkood oo ah inay tinta geesaha kaliya ka taabtaan. dumarku waxa ay iska gaabinayaan tinta qadar leeg xubinta farta. sidaas uu xaajigii mutamatiga ahaa ugu dhamaystirmay umradiisii, waxaana markaa u xalaal noqonaya wax kasta oo laga mamnuucay intii uu xarmanaa. waxa habboon in xujaydu ay talbiyada badiyaan waqtigeeda sunnada waafaqsan oo kala umrada laga bilaabo ihraamka ilaa dawaaful quduumka. xajkana waxa ay ka bilaabanaysaa ihraamka ilaa laga gaaro tuurista jamrada weyn ee subaxa ciida ee tobanaadka. talbiyaduna waa labbayk allahumma labbayk labbayk la sharika laka labbayk innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika laka labbayk. المصطفى صلى الله عليه وسلم. inta dabadeed waxa marka aan u gudageli doonaa hawlihii kale ee xujayda iyadoo markaasi xajku uu noo bilaaban doono. waxa marka nagu soo fool leh oo aan gudagalaynaa 8 bisha Dhulxijja, maalinka markaasi loo yaqaano yawm tarwiya oo ah maalinka bisha 8aad ee xajka. maalinkaasi dhammaan xujayda oo isugu jira kuwa tamattu sameeyay, kuwa qaariniina iyo kuwa mufridiin ahba waxa ay u boqolayaan oo ay aadayaan dhinaca Mina sida ay sunnadii nabiga calayhi salaatu wassalaam. markaas ayaa waxa lagu tukanayaa halkaasi salaadaha maqribka, cishaha iyo subaxa iyadoo la gaabinayo laakiin aan la jamcinaynin. arintaana wax farqi uma dhaxeeyo reer Maka iyo qayrkood, waxaana sida sunnadu ay tahay xujaydu ay bariyaan habeenkaas Mina ilaa subaxa 9aad oo marka qorraxdu ay soo baxdo loo dhaqaaqi doono Carafa iyagoo degan oo tartiib u socda. maalinka 9aad ee Dhulxijja Carafa marka la yimaado waxa weeye maalin qiimo leh sida nabiguba uu ku tilmaamay, waxaana muslimiintu ay maalinka joogayaan Carafa ilaa qorraxdu ka dhacdo. waxaana muhiim ah inaad ku jirto xadka Carafa oo dhanna waa mowqif. maalinkaas weyn waxaad ku dadaashaa inaad badiso talbiyada iyo digriga Allah iyo ducada, sidoo kale dambi dhaafka badiso, ilaahayna aad khushuuc iyo qalbi saafi ah ku barido adigoo u ducaynaya naftaada, ehelkaaga iyo dhammaan muslimiinta. marka xilliga duhurka la gaaro ayuu imaamka masjidka Namira waxa uu dadka u jeedinayaa khudbad waana iyo xusuusina. kadib marka ay khudbadu dhamaato ayay dadku waxa ay tukanayaan duhurka iyo casarka oo gaabin iyo jamcin ahba sidii uu sameeyay nabigu calayhi salaatu wasalaam. mana jiro wax sunnah oo laga hormarinayo ama loo dhaxaysiinayo ama la tukanayo gadaashooda. iska ilaali walaalka xaajiga ahaw khaladaadka qaarkood ee la sameeyo maalinkaas oo dhici kara inuu xajkaagii buro ama uu ajarkii ka nuqsaamo. waxa kamid ah khaladaadka ay sameeyaan xujayda qaarkeed in dadka qaarkood ay degaan meel ka baxsan xuduudda Carafa oo ay iska joogaan ilaa gabalka uu dhaco, dabadeedna u daadegaan Musdalifa iyadoo aan gabalkii dhicin.
carafo oo laga gadoomo markaasi inta aan gabalku dhicin taasina ma bannaano waayo waa arrin khilaafsan sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam dadka qaarkood waxay isku buurtaan amaba aad arki doontaa inay isku buuranayaan oo ay fuulayaan buurta loo yaqaano carafa iyadoo ay soo masaxanayaan amaba ay ku tukanayaan taasina waa khalad waana arrimaha bidcada ay la yimaadeen aan asal u lahayn diinta iyadoo ay intaasi dheer tahay dhibaatooyin xag caafimaad ahaan ka soo gaaraya halkaasi waxaa sidoo kale dhacda in dadka qaarkood ay ducada ula jeestaan dhinaca buurta sunnaduna waa in loola jeesto dhanka qiblada من الكفر والفقر ومن عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أتوبوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. المزدلفة galabta sagaalaad ee dilxija marka gobolku dhaco ayaa xujaydu waxa ay ka gadoomayaan carafa iyagoo u socda dhinaca musdalifa waxaana ay marka musdalifa ay yimaadaan iyagoon wax kala qabanay hore ka tukanayaan salaadaha maghribka iyo cishaha oo la jamcinayo lana gaabinayo iyagoo samaynaya hal aadaan iyo laba iqaamo habeenkaasi musdalifa ayay baryayaan talbiyada iyo ducada iyo mahadcelinta allahna waa la wadayaa sidii ilaahay uu xujayda ugu fududeeyey joogitaankii maalinka carafa khaladaad ayaa jira laga maarmaana in la saxo xujayda qaarkood ay sameeyaan marka ay musdalifa yimaadaan waxaana ka mid ah in iyagoo aan salaadii tukan ay hore ka bilaabaan dhagaxaantii jamaraadka salaada ayaana ka awlaysan waana arrin khalad oo aan bannaanayn aaminsanaanta xujayda qaarkood ay aaminsan yihiin in dhagaxaanta ay khasab tahay in laga gurto musdalifa sida sunnadu tahay waa sida aan soo sheegnay inay habeenka baryaan musdalifa ilaa salaada subax laga gaaro oo halka lagu tukado dadka tabarta daran ee dumarka caruurta iyo ducafada waxaa loo fasaxay inay musdalifa ka baxaan oo mina aadaan qaybta ugu dambaysa ee habeenka marka xaajigu salaada subax tukado waxa uu istaagayaa meel kasta oo musdalifa ka mid ah isagoo nabigu uu yiri kulligeed waa mowqif halkaasuu xaajigu ku ducaysanaya oo talbiyeysanaya ilaahayna uga mahad celinaya sidii uu xajkiisa ugu sahlay kadib inta aanay qoraxdu soo bixin ayuu u dhaqaaqayaa musdalifa isagoo ku sii jeeda mina horena u sii qaadanaya 7 dhagax oo midkiiba xabadda galeyda la-eg oo uu ku tuurayo jamrada weyn marka xaajigu uu soo gaaro mina waxaa markiiba isagoo talbiyeysanaya uu aadayaa dhinaca jamrada weyn waana tan ugu shishaysa ee maka xigta marka uu gaaro jamrada agteeda ayuu markaasi xaajigu waxa uu joojinayaa talbiyadii markaas uu talbiyada joojiyo ayuu xaajigu waxa uu tuurayaa jamrada weyn isagoo markaasi ku tuuraya 7 dhagax oo isku xiga oo mar walba takbiirsanayo inta dabadeed waxa uu gowracayaa hadyigii hadduu ku waajibay waxaana fiican hadday suurto gasho inuu wax ka cuno masaakiinta iyo fuqaradana u qaybiyo dabadeed madaxa ayuu markaasi xiiranayaa ama gaabsanaya waxaana fadli badan xiirashada haweeneyduna waxay gaabinaysaa tinteeda qadar la-eg xubinta farta acmaasha xajkana waxaa habboon inay sidaa isugu xigaan hadduu kala hormarayana wax dhiba ma lahan لا إله إلا الله الله أكبر
الله أكبر ولله الحمد. dhammaan muslimiinta ku nool caalamka waxay indhahoodu ku soo jeedaan mina gaar ahaan xujaydu maalinka ciidda iyagoo faraxsan takbiirsanaya ilaahayna